munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ee ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolada dhexe oo ay ka mid yihiin xildhibaano maamulka ka tirsan ayaa lagu qabtay fagaaro weyn oo ku yaala bartamaha degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud waxaana intii xafladan ay socotay dadka kala duwan ee ka hadlay ay khudbadooda ku taageereen madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka halkaas ka hadlay ayaa sidoo kale ku dheeraaday sida ay ugu faraxsan yihiin in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo noqdo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyagoona ku booriyay in madaxweynaha cusub ee la doortay uu la yimaado wax qabad muuqdo waxa ugu horeyn halkaas ka hadlay qaybi kala duwan ee bulshada ee halkaas lagu casuumay soo dhaweynayna waan soo sharaf iyo wanaag loo soo dhaweynayna madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo annagoo ah degmada Xeraale annagoo shacabka degmada oo diinka oo dhaqameedka oo bulshada sida ardayda waxbarashada isboortiga oo diinka dhammaan qaybaha bulshada kala duwan oo dhan waxaan leenahay waxaan soo dhaweynaa madaxweynaha